nuxurkiisu wuxuu yahay haddaan idin soo ururiyo nuxurkiisu wuxuu yahay sinada wixii aan raalli la yskaga ahayn amaba se lagu sameeyey qof qaasira oo golaansho aan bixin karin ayuunbaa dembiya waa xaaraan la odhan maaye ayaa dembiya wax allaale wixii raalli la yskaga yahy sina ha noqoto liwaad ha noqoto iyo raggoo xumaan isula taga xeerkaasi wuu fasaxayaa xeerkaasi wuu fasaxayaa inta looga socdee loogu gabanayaana waa intaa waana sida ay dhigayaan qawaaniinta kufaarta qawaaniinulkufaar ee laga soo dheegtay waa siday dhigayaan mana jiro xeer kale oo zinada jariime ama faldembiyeed ku sheegaya zinada la yskaga raalliya taqu llaha yaa cibaad allah meynaan dad muslimiina aynaan ahayn oo ilaahay kitaabkiisan rumaysan xeerkaasi wuxuu iska hor keenayaa qoyska oo wuxuu leeyahay qof kasta oo qof kala taataabto raalli aan ka ahayn qof kasta maxaa soo gelaya hadday gabadhu ninkeedii taabato ama ninku hadduu xaaskiisii dhunkado aan raalli ka ahayn waxa uu sameeyey faldembiyeed ciqaab adag oo sanado badan oo dheer oo xadhiga ayaa arrinta noocaasa ka yahay nin inantiisa yar iska bixin karaa ma jiro oday bixin karaa haddaana iyadu raalli ka ahayn qof waana looma guurin karo haddii guurka dantiisu ay ku jirto xataa qofka u guuriya ciqaab daran baa la marinaya xeerkani ummaddu sharafta ka dilaya qof wal oo madax maalqabeena madax dhaqameeda culimo ah qof kasta oo doonaya siyaasiya inuu sharafta ka dilo qun yar buu iska odhanayaa qofkaasi uu ifarafareeyey ama foolxumuu ila yimi ama uu isku dayeyba weliba caddaynna lama weydiinayo iyadana ku bushaarayso axsaabta xubnahooda iyo madaxdooduba way ka hadleen qareennadu way ka hadleen culimmadu way ka hadashay bulshaweyntu way ka hadashay xeerkan waa xeer xambaarsan gefaf iyo qaladaad diineed iyo dhaqanba waa xeer furaya albaabka dhaqanxumada daweeye islaahdeen laakiin albaabkii dhaqanxumada ku dhexdhaceen waxyaabaha ugu la yaabka badan ee markii aan akhriyey xeerka igaga soo baxay markay ansixiyeen golaha baarlamaanka waynu naqaana habka wax loo ansixiyey kadib markaanu aragnay markaanu garwaaqsannay markay noo caddaatay qodobadaasaa ayaa markii lasoo khulaasaynaya la qoraa waxay qoreen markuu garwaaqsaday waa golaha baarlamaanku in ay laga maarmaan tahay in la dambaqo lana waafajiyo xeerkan axkaamta shareecada islaamka dastuurka iyo xeerarka kale ee faldembiyeedka ciqaabta taas wuu qoray xeerkan sharciga islaamka la waafajiyo sabxadahooda ugu horeeyana waxaa ku qoran in la dejiyo xeer waafaqsan shareecada islaamka marka horta bal waxaan isweydiinaynaa xeerkan intaanan u gudadegin shareecada islaamku qodobkan maxay ka tiri waa qodobkaas waynu fahmaynaa shareecadu waxay ka tiri hadduu waafaqsan yahay dee saxa dee haddaanu waafaqsanayn dee qalda wax yar waxaan dul mari lahaa iyadaynaan dheeraynaynin malaha dadka qaarkood waxay u haystaan inuu yahay waxani wax iska sahlan waana laga yaabaa raggii baarlamanka ahaa ee qalinka ku duugay ragga qaarkood khudbadda dhegaysanayaan ay fadhiyaan laakiin waynu cudurdaari karnaa maadaama yihiin dal walaalahayna oo odayaalo oo muslimiina oo cilaalaysanaya wax badan ba hadda mashquulku iska badan yahay waa laga yaabaa inay yidhaahdeen war dee maba akhrii karna inaga sii daaya ama qaarkood aanay akhrin ama qaarkood wax sahlan ay u haysteenba way dhici kartaa haddaynu cudurdaarno weeye laakiin aafaadka uu xambaarsan yahay 14 qodob oo ka mid ah ayaan yaro dul carari lahaa oo dareerin lahaa dabcan iyadoo khudbad iyo muxaadaraduna ay kala duwan yihiin oo khudbadda in lasoo koobaa waxaa ka mid a waxyaabaha ku jira shareecada khilaafsan horta marka hore waxay inagoo sheegi doona ceebihiisa ayaa waxay ku bilaabeen xeerkani inuu waafaqsan yahay shareecada waa iftiraac cala allah ilaahay lagu been abuurtay weeye xeerkan aanu soo wadnaa sharcigu khilaafsan mana waafaqsana shareecadu waafaqsan mana waafaqsana waa been abuur qodobka saddexaad baa saa sheegaya xeerkaa isagii waxa sinada la yidhaahdo uma aqoonsano siduu sharcigeen u yaqaano sinada wuxuu u yaqaanaa waa xeerkii gaalada caadiga ah ee ingiriiska iyo faransiiska iyo westranka waxay u yaqaanaan qofka marka la qasbo
laba nin haddii ay isfuulaan laba naagood haddii ay isfuulaan nin iyo naage hadday kala sinaystaan oy is ogol yihiin sina lama yidhaahdo xeerkana way ku sugantahay faqradda u horeysa waad akhriyi kartaa waa qaanuunka gaalada caadiga ah laba qofoo kastoo is ogol oo galmo noocay doonaysa ha haatee isku ogoli agtooda sina kama aha waanay ku xusan tahay marka sinada waxaa la yidhahda waa la iska samayn karaa wey dad yahow mar haddaa is ogoshiin dhankaa doontaan u rida bay ka dhigantay rag iyo dumar dhinacaa doontaan u wada xeerkan isagiisina wuxuu u yaqaanaa waxaa loo yaqaan xagga shareecada ikhtisaamka ama kufsiga kufsigaas unbuu leeyahay kaasaasina ah oo cuqubo yeelanaya cuqubadii maxay noqotay xeerkan ku jira cuqubada xeerkan loo dhigay maaha tii islaamku u yaqaanay qur-aanka iyo xadiidku ay sheegeen ahayd in qofka ama la karbaasho ama dhagax lagu dilo waa xabsi marka waa taqyiir lisharci illah ilaahay sharcigiisiba si cad loo bedelay aayadihii ku sugnaa suuratu nuuri aayadihii kale axaadiidtii nabiga saxiixa calayhi salaatu wasalaam halkaasaa la iska dhigayo waxaa la gebiga cuqubadaaba kufsigaba waxaa lagu bedelayaa xadhig dilna male karbaashna male sidaana waxaa tilmaamaya qodobka shanaad oo aad ka akhrii karaysaa xeerkan isaga ah waxyaabuu shareecada ku khilaafsanya waxaa ka mid a ninkii xaaskiisa ama odaygii islaantiis qabay hadduu midigka kale ku daqaqabuu qasbo wuu kufsaday weligoodba ha isqabaan islaantiibaa afka marooriso odaygii diidiiday markaasuu isna riixayo xoog buu kaga qaaday maxkamaddaa la soo taagaya ninkiiba waa lagu haystaaba islaantiisii rag badanoo waxaa laga yaabaa si hadday u dareensay waa inaga joojiya bay odhan layaan habruu inaga hor imanin sidoo kale de islaantu waanay dirqii karayn mudaacabada waxaan la idhaahdo iyo ciyaarta ninkii gabadhu ay isku sameeyaan iyagoo dee isxodxodanaya hadduu midagka kaloon ogolayn ku sameeyo waa maxkamad waxa qasab la idhahdo ba agtooda dembi ah waxaa heerkan ku jira haddii ilmo yar loo guuriyo ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado waa qodobka 7 waa dembi waana maxkamad taa macnaheedu waxa way nabi maxamed baa markuu caasho guursaday dembiile ahaa hadda u fiirso daada lagu qaangaaraana waynu sheegi doonaa uba 18 jirba 18 qof ka yar haddii loo guuriyo waa maxkamad xarig intaa leeg baa qofkaa la marinaya odaydaa inantiisii guuriya ina yar baa 16 jir 17 jirabaa loo guuriyey gabadh waa maxkamad dembiil ayaa weeye dad qof aan waxba dooran karayn inuu qaangaar ahayn ayaa loo guuriyey halkaasay taasina maraysa islaamkuna wuxuu qabaa ninka waalan inuu guurin karo gabadha waalan loo guurin karo sabiga loo guurin karo inanta yar loo guurin karo zawaajul maslaxa bay fuqahadu u yaqaanaan kutubteena macruufka ah dee fiqiga guurka danta ku jirta weeye hadday gabadhi tidhaahda ilmaha yar waa ina wanaagsan oo nasabkiisu fiican iyo xooluu leeyahay anaa korsanaya 10 jirkiisaba ha ahaado oo sidiisaa ku korsanaya dee ka dhursku baa la odhanaya dhaqankeennii soomaalidana way ku jirta markuu nin qolo jeclaado wuxuu leeyahay nasabadoodii iyo ehelkoodii ummadoodaa wanaagsanoo inantaasaan ka guursanaya iyadoo yar baa loo meherin jiray siduu nabigu u korsaday caasho markaa korsaa la odhan jiray kadalik nin waalan gabadh waalan qofku hadduu dantiisa warka waa la isguursan karaa waa guurka maslaxadda ku jirtaa la qofkan dhiman haddii loo danaynayo khalaas waa loo guurinaya weligaa markaa u aqbalaya waa dembi halka waana la xidhaya qofka arrintaa gala 18 jirkoo ka diganyahay qodobka 8aad ama arrintaa 8aad balaayada ku jirtaa waxa weeye qaangaarka waxay u yaqaanaa ama xeerkan u yaqaanaa odayaashu baasgareeyeen 18 jir 17 jir 16 jir 15 jir midna qaangaar maaha salaadna laguma laha soonna laguma laha sakana laguma laha xajna laguma laha waxbaba halkaana diin dhan baa duntay oo daaqada laga tuuray sidoo kale waxaanay qaangaar u aqoonin shareecadeenu shayga qaangaarka u taqaano ah hadduu qofku biyaha taranka helo ama gabadha naasi ay usoo baxaan ay dhadigaato oo dhiiggii caadada ay hesho waa qofkii oo dhali kara waxaa dhacda dadka barwaaqada ku koray ilmuhu isagoo 12 jira ama 10 jira ayuu dhali karaa wiil iyo gabadh mid kastaba ha ahaado oo markaas caruur dhali karaa taana laguma qaangaaray ku leeyihiin xeerkan oo arrinta 9aad ceebihiisa waxaa ka mid ah cawrada rag iyo dumar dadda islaamku waxbuu u yaqaanaa dumarkana waa jirkoo dhan marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood raggana waa xudurta iyo jiribka inta ka dhaxaysa
halkan cawrada agtooda waxa weeye marka uu qofku ciqaab yeelanayo cawro fayday waa marka uu intaa yara xumaysta baneeya nigiska yar lagu xidho xubinta taranka iyo meesha qashinku ka baxay intaa yara hoos ee dabada iyo xaggan hore intaa yar markuu qaawiyo weliba meel fagaaro ah dhexdiisa uu isku qaawiyo intaa ka tuuro ayaa cawro la ydhaha laakiin gabadhu haddii ay dee iska gashan tahay nigis kayshaligii iska gashan tahay meelaheedaa iska marayso cawro maaha ninkiina cawro maaha waata keenta markaa dee in yaru intay gashadaan inay isqaawiyaan waa akhlaaqiyaadkii ayaa halkaana daaqada laga